Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii aan kaga hadli falanqeynta fanka Bollywoodka hadday ahaayeen atoora caaniha Trisha caana iyo weliba kuwa koonfurta India. Barnaamijkeena update-ka ugu dambeeyay maanta idinkaga heyna waxaa ka mid ah filimka weyn ee Bunyan Silfan ayaa OTT-ga lagu soo fasaxay waxaana laga daawayaa shirkadda Amazon Prime. Filimka waxaana loo daawanayaa nidaamka loo yiraahdo pay-per-view oo ah waxaa ku shubanaysaa $199 kadib ayuu filimka ku bilaabmaya oo dhiganta $2. Dadka subscribe-ka u saaran ma daawan karaan filimkaas iyagoo lacagtaas aan ku shuban, laakiin waxaa si toos ah loogu soo fasaxayaa toddobaadka dambe haddii Allah awood raali ka noqdo. Filimka Bunyan Silfan waa filim hogaamiyayaal ay ka yihiin Jayam Vikram, Jayam Rafi, weliba Kartik iyo Atrishada Aishwarya Rai. filimkaasna sidaan wada ognahay ganacsi fiican ayuu sameeyay, tiyaatarada wuxuu ka noqday all the time blockbuster. waxaan rajeynayaa saacadaha soo socda isaga oo af Soomaali filimkaas inaan daawan doono lana soo turjumi doono haddii Allah awood raali ka noqdo. markaas ayaan falanqeyn doonaa anagoo ka bixi doona filimkaasi movie reaction. wararka kale update-ka idinkaga heyna waxaa ka mid ah labada filim ee 25 bishan la saaray ee Ramsey 2 iyo Thank God, iyagana sidii laga filayay ma noqon, inkastoo Diwaaliga la daawaday filmadaasi ganacsigooda iyo heerkii laga filayay weli may gaarin. inkastoo filimka Ramsey 2 oo xoogaa ka ganacsi badan yahay filimka Thank God. sidaan wada ognahay Ramsey 2 waxaa hogaamiyay ka superstar Akshay Kumar, halka filimka Thank God oo isagana hogaamiye oo ka yahay superstar Ajay Devgan, Rakul Preet Singh iyo Siddharth Malhotra. labada filim ee 25 bisha la saaray Diwaaliga sidii laga filayay weli ama heerkii laga filayay may gaarin, iyagoo tijaabo adagna hortaala. maanta oo Sabti ah iyo bari Axada waxaa laga yaabaa sarakac xooggan inay sameeyaan, balse tijaabada culus waxay hortaalaa maalinta Isniinta oo ah maalin shaqo. markaasna ayaa la ogaa doonaa labada filim halka ay higsanayaan iyo natiijahan waxay noqon doonaan. warar kale update-ka idinku keen waxaa ka mid ah sidaan waan wada ognahay waxaa la soo saaray filimka Drishyam 2 trailerkiisa. filimkaasna waa filim Ajay Devgan aad ugu xarakeeyay. anagoo wada ognahay Drishyam 1 ama Drishyam qaybta koowaad Ajay Devgan sidii oo familkiisa difaacay iyagoo aan ogeyn taabo wiilkeeda inuu gabadh gacanta xaaskiisa ay ku baxday iyo gabadhiisa, balse Ajay Devgan oo filimkan xayeysiin u sameynay waxa uu yiri Drishyam part 1 waxa intii la doonay ka wanaagsan daawashadaas daawadayaashana aad ugu raaxaysan doonaan part 2. filimkan Drishyam 2 update-ka cusub wuxuu ka mid yahay waxaa lagu soo daray aktarka Akshay Khanna kaasoo sarkaal loo xil saaray kiiska dilka wiilka, isaga ayaana dib u furayo waxaana wareysi oo la yeelan doona Ajay Devgan iyo familkiisa isagoo doonayo kiiska wiilka inuu soo gabagabeeyo, balse Ajay horloob diyaar wuxuu u yahay familkiisa inuu difaaco sidoo ku difaaci lahaa naftiisana oo ugu hor lahaana wax walbana waa u sameyn doonaa. filimkaasna Ajay Devgan wuxuu sheegay in daawadayaasha aad iyo aad ugu heli doonaan filimkaasna isagoo filimka tiyaatarada la saari doono bishii 11aad 18keeda haddii Allah awood raali oo ka noqdo. wixii kaloo intaa ka soo kordhana waa idin soo socodsiinaa. daawada haddii aad tahay marka kugu horeysa aad soo booqato YouTube channel-keena Dulucda Filimada, subscribe inoo saar, share-ta iyo like-tana hanaga iloobin. waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan oo mar walba aad ula socotaan barnaamijyada aan anaga idin soo tabino. warar kale update-ka idinkaga heyna waxaa ka mid ah filimka No Entry part 2giisa in la sameyn doono dhowaan. qarashgarayaha filimkaasi Boney Kapoor iyo director-ka filimkaasi Anas Basmi ayaa sheegeen filimkani No Entry inaan Salman Khan qayb ka ahayn, isagoo aan ogeyn qaybta hore filimka Salman Khan in door fiican oo ka qaato udub dhaxadna filimka uu ahaa, balse Salman Khan wax badan ayaa la sugayay isagana Janis uma hayo mashquulkiisa aad u badan waayo wuxuu ku mashquulsan yahay filimka Tiger 3 ee la daawan doono sanadka cusub 2023 haddii Allah awood raali ka noqdo iyo filimkiisii Kabiciid Kabidiwaali. filimkaas loo bixiyay Kisi Ke Bhai Kisi Ke Jaan kaasoo shaqadiisa weli ay socoto. Boney Kapoor oo ah qarashgarayaha filimka iyo director-ka Anas Basmi waxay go'aan ku gaareen Salman Khan la'aantii filimka inay sameeyaan in dhowaan shaqadiisa bilaaban doonto. idin xasuusin No Entry waxaa hogaamiyayaalka ahaa Anil Kapoor, Fardeen Khan iyo Salman Khan, balse filimka No Entry part 2giisa waxaa la sheegay in Salman Khan isaga la'aantii la sameyn doono ee dhowaan lagu dhawaaqi doono atooraha weyn ee booskiisa lagu bedelay. wixii kaloo warar ka soo kordhana insha Allah waa idin la socodsiin doonaa. warar kaloo update-ka idinkuga heyna waxaa ka mid ah superstar Rajinikanth filimkiisii Jailer ee la wada sugayay December dhamaadkeeda in la daawado ayaa dib u dhac ku yimid. filimka Jailer waxaa director ka ah Nelson Dilip Kumar. filimka Jailer ayaa waxaa la sheegay in la daawan doono sanadka cusub 2023 iyadoo u badan tahay 14 Abriil meelahaas in la daawado. filimka Jailer oo hogaamiyay superstar Rajinikanth waxaa kula heliyay Shiva Rajkumar iyo Atrishada awood badan ee Ramaya Krishna iyo Yogi Babu. filimkaas ayaa waxaa la sheegay 80% inuu duwan yahay qaybaha dhimanna la dhameystiri doono inta sanadka ka dhiman, isagoo shaqo adag laga qaban doono kadibna xayeysiin loo sameyn doono waxaan la daawan doonaa.
sanadka cusub taamirka markay ku beegan tahay bisha Abriil wixii kaloo ka soo kordhana waa idin la socodsiin doonaa saa ula socda update wararka idinkeena waxaa kamid ah filimka Vidya ee hogaamiye uu ka yahay Varun Dhawan ee filimka cabsida ah ayaa isna waxaa la daawan doonaa 25 November haddii Allah uu daraala ku noqdo filimkan Vidya ee hogaamiye ka yahayna Varun Dhawan waxaa la isla jilayaan atrishada Kirti Sanon filimkaasna waa filim cabsi ah waxaan maalgelinaysa shirkadda Mardok wixii kaloo ka soo kordhana filimkaasi waa idin la socodsiin doonaa insha Allah barnaamijkeena intaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa barnaamij lamida intaan ku kulmeynana waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh